waxaynu barnaamijkeena baro ku soo qaadanaynaa taariikh kooban oo Soomaaliya ku saabsan laga soo bilaabo 1960kii ilaa 2009kii intii u dhaxaysay. waxaynu qaybta koowaadna ku soo qaadan doonaa 1960kii ilaa 1990kii wixii dhacay. July 1 1960kii waxaa dhacay xorriyaddii iyo midowgii dadka Soomaaliyeed qaybtii laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii 19aad ay gumaysan jireen Ingiriiska iyo Talyaaniga. July 1 1960kii madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliya waxaa noqday Aadan Cabdulaahi Cismaan Daar Aadan Cadde. waxa uu madaxweyne ahaa ilaa June 10 1967kii markaasoo doorasho madaxweynenimada kula wareegay Cabdirashiid Cali Sharmaake. Aadan Cadde waxa uu noolaa intii u dhaxaysay 1908 ilaa June 8 2007. 2 June 1962kii Nelson Mandela ayaa u mahad celiyay 4 wadan oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Mandela waxa uu ka khudbadeynayay shirkii Bam Africa ee lagu qabtay Addis Ababa isagoo u mahad celiyay 4 dal ee Afrika ee xilligaas ka mid ahaa dalalka xorta ah kuwaas oo kulankaas joogay kuwaas oo kala ahaa Soomaaliya, Itoobiya iyo Suudaan. waxa uuna Mandela ugu mahad celiyay dalalkaas sida ay cunaqabataynta siyaasadeed iyo mid dhaqaale u saareen dawladihii markaas midabta koorka ku hayay Koonfur Afrika iyo sida ay dalalkaas magangeliyo u siiyeen qaxoontiga reer Koonfur Afrika. June 10 1967kii waxaa Soomaaliya madaxweyne ka noqday Cabdirashiid Cali Sharmaake. October 15 1969kii ayaa la dilay Cabdirashiid isagoo booqasho ku mariyay Laascaanood. Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa uu noolaa intii u dhaxaysay 1919kii ilaa October 15 1969. October 21 1969kii inqilaabkii loo bixiyay inqilaabkii aan dhiigga ku daadan ayaa ka dhacay Soomaaliya waxaana sidaas xukunka ku qabtay General Maxamed Siyaad Barre. October 21 1972kii waxaa si rasmi ah loo qoray af Soomaaliga oo wixii xilligaas ka horeeyay aan qornayn balse Soomaalidu weligood ku hadli jireen. June 23 1975kii culimo Soomaaliyeed ayaa ka dhiidhisay sharci ay soo saartay xukuumaddii Siyaad Barre. sharcigaas oo ka hor iimaanayay Quraanka iyo xukunka Alle maadaama ay dadka Soomaaliyeed oo 100% Muslim Sunni ah ay u cuntami weyday. xukunkaas ayay culimadu ka gadoodeen waxaana loogu jawaabay in 10 culimadii ka mid ah lagu xukumay dil. waxaana culimadaas Muqdisho lagu toogtay 23kii bishii koowaad 1975kii. Abriil 9 1978kii waxaa dhicisoobay inqilaab lala maaganaa in lagu rido xukuumaddii Siyaad Barre waxaana la toogtay 17 ka mid ah raggii inqilaabka lagu tuhmay. Korneel Maxamed Sheekh Cismaan oo ahaa hogaamiyihii inqilaabka xilligaas ayuu Cabdilaahi Yuusuf ka baxsaday Soomaaliya maadaama uu ka mid ahaa raggii ku jiray fulintii inqilaabka. inqilaabku wuxuu ku qorshaysnaa inuu dhaco Abriil 12 1978kii laakiin wuu ka soo hormaray wuxuuna dhacay taariikhdu markay ahayd Abriil 9 1978kii waana uu dhicisoobay. Janaayo 30 1984kii weerar diyaaradeed oo lala beegsaday Boorama waxaa lagu xasuuqay 37 arday oo da'doodu u dhaxaysay 6 jir ilaa 14 sano iyo 4 macallin halka dhaawacuna uu kor u dhaafay 39 arday iyo 5 macallin. waxaa kaloo dadka ku naf waayay weerarkaas ka mid ahaa 4 hooyo oo xaamilooyin ah kuwaas oo ku sugnaa MCH-ka. Agosto 7 1990kii Soomaaliya ku soo batay jabhadooyin fara badan oo ay ka mid yihiin SNM oo la aasaasay Abriil 1981kii, USC oo la aasaasay 1989kii iyo SBM oo la aasaasay March 1989kii. jabhadooyinkaasna waxay u midoobeen sidii ay xukunka uga tuuri lahaayeen xukuumaddii Siyaad Barre. ha ilaawin like-ta haddii fiidiyowgan yahay mid ka codjabiyey. Subscribe si channelkan si aad u heshid fiidiyoyo iyo dokumentariyo xiiso badan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.